السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جانل كينا حقوق ميديا محان الدوراني طريقة فقرقة ما انت موضوعينو انتاسو كسابيهي فقرقة يهوضا النمضة سيدي بيدين تينو هذا شيء هوضا النمضة يفقرقة لبضوا مركهرة وامتحان قفك قنقة هنا وحالة ييغيا بروحا وكسامي حولها لسيين kan faqiirka ahna waxa la eegayaa inuu ku samrayo in kale waxa kale oo in la tilmaamo mudan in kala qaybsanaanta dadku ay u kala qaybsan yihiin qani iyo faqiir ay xikmad ku jirto oo hadii dadku qani wada ahaan lahaayeen noloshu macna ma yeelateen sidoo kale hadii ay faqiir wada ahaan lahaayeen macna ma yeelateen iyadoo ay sidaa tahay ay hadana in la xuso mudan tahay in qofka walba وحرية بوحدة وهايستو إن فقير نقضو إيه إنو قني نقضو محايا لطريقة فقر قنوا مذعب وسببه سوتا طريقة قني مليونة ومذ نقضة وسببه سوتا منك دون ذا وقنسا إلا يرحض بالقيت أيا وحاولي هدية ضلطو أذيغو فقيرة وحدا بياكم ملهين هديسة دمتو adigoo faqiira taas dambibaad ku leedahay nin gaala hadalkiisa inaan daliil ka dhigano waa laga fiican yahay laakiin gaalku wixii xikmad ah ee diinteena aan ka hor imanaynin waa lagu qaadan karaa tani waxay la mid tahay qofku dhalan karaa isagoo oo aan wax ajarayo khayra midna wadan haddii uu dhinto isagoo sidii uu ku dhashay oo aan wax khayr shaqaysan taasi dambi waa ku leeyahay تانية تاسوا اسكوميد وحبكم كلا دوانا وفكر قلبا إلى أن قدر كالله ودليشنو فقيرنا مدينة أو أن نراهنو إلى هيبان وقري سيداس وحان أوران كرنا مركا أين صوبت ودن لني معدنو هدانا أن وحبا كوهلي وينو لكن سينغو اسكفدنا أو أن فرقاتين إلى أن قدر كالله إلهي حجك ديغانو تاسماها من الدين تينا دليلك هيستا انت بدن waxaa dhacda in hadii qofku sababta la yimaado allana tala saarto aanu hoojinayn ajarkiisana aanu dayacayn sida ilaahay quraankiisa ku sheegay fa inna allaha la yusii'u al-ajra al-muhsinin ilaahay dadka muhsiniinta ajarkooda ma lumiyo marka aan eegno dunidan ku noolahay waxay u kala qaybsan tahay duni xagga dhaqaalaha ka horumartay iyo duni xagga dhaqaalaha dib u dhacday waxaana taas sabab waa dadka ku nool oo ku kacay oo ku kala duwan qabashada sababaha faqriga iyo kuwa qaninimada ee kitaabkeenu ka hadlayo waxa kale oo in la tilmaamo in qaninimada ay diinteenu dhiiri gelisay halka faqrigana ay ka digtay nabiguna xariisina nabadgeliyo korkiisa haatee wuxuu ka kala magan galay faqriga wuxuu yiri اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ربك يوحن كما قال قال لمي فقر قوح بالشيء كينا مشاكل بدن توجد وحا كينا وفقري قبلها وتشيكودا كغنا عسدا وفقري بريدا يتوكسيغا وحا كينا وفقري برعنمدا وحا كينا وفقري وحا تالد كذا قدينمدا ومركا ميشيدا لا دغو ee xoolaha loo maamulo sida la doonayo waxa ka dhasha khayr farabadan oo bulshada saameyn wanaagsan ku yeesha qarnimada noocaas ahi nabiga ayaa tilmaamay yiri la hasada illa fil islaam rajulan ataahu allah kitaban fa huwa yaqumu bihi ana al-layl wa ana al-nahar wa rajulan ataahu allah malan fa huwa yatasaddaq bihi laylan wa ana an-nahar waxa la isku xaasidaa majiro oo aan ka ahayn laba shay nin ilaahay siiye kitaab cilmi oo habeeniya maalin baaqrinaaya iyo nin ilaahay siiye xoolo oo habeeniya maalin sadaqaysanaya ilaahayna quraankiisa wuxuu ku sheegay in xoolaha laga bixiyo jidka ilaahay xataa nafta ka fiican tahay wajahadu bi amwalikum wa anfusukum fi sabilillah dalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun وجهات ممالكين ينفتينا حديثك كلا وتماما يفضلك حوله أي ليهين وحاويا
عن أبي دار الغفاري رضي الله عنه أن النساء من أصحاب رسول الله قالوا له يا رسول الله ذهب أهل الدروس بأجوار يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بأفوالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقوا إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وفي يدع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوة ويكون له في أجرا قال رأيت لو أطاعها في حرام أكان عليه وزرا فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجرا رواه مسلم صحابة كوي فقيرك أي رسولك ويميد وكيري رسولك إلهي dadka xoolaha liya ajarka oo dhan iyaga ayaa qaata maxaa yeelay way tukanayaan sidaan u tukano way soomayaan sidaan u soonno waxa kale oo ay sadaqaysanayaan wixii meelkooda dheeraadka rasuulku markaa waxa uu yiri oo idinku miyeydaan haysan waxaad sadaqaysataan tasbiix kastaba waa sadaqo allahu akbar kasta waa sadaqo alxamdulilah kasta waa sadaqo laa ilaaha ila allah kasta waa sadaqo wanaaga oo aad amartaan waa sadaqo xumaanta oo aad nahisan waa sadaqo midkiin oo xaalkiisa u taagan waa sadaqo maalintii dambe ayay ku soo noqdeen oo ay yiraahdeen rasuulka ilaahayow kuwii xoolaha lahaa intii aad noo sheegtay wayna sameeyay rasuulka ilaahay baa yiri naxariis nabadgelyo korkiisa aatee wuxuu ku jawaabay kaasi waa fadliga Alle oo cidii uu doonayo waa u siiyaa sidaa daraadeed xooluhu waa fadli ilaahay bixiyo oo haddii aad sida rabtid u doonayn aad u maamusho ajannada rabbi ku galayso marka waxa liibaan adduunyo iyo mid aakhiraba haddii aan qaniga jir ahayn dunidu ma qurux banaateen guriga lama dhisteen iskuul lama jireen masaajid lama dhiseen jidad qurux badan lama jireen dunidu waxay ahaan lahayd mugdi madow waxaan ku soo koobaynaa intaa laysa alqinaa can ilkasrati alcarad walakin alqinaa can alnafs qaninimadu ma aha tan jirka maalka lacagta ee qaninimadu waa naftaada oo qani noqota wassalaamu calaykum